qaar ka mid ah madaxweynayaasha maamul goboleedyada oo maanta Muqdisho soo gaarayo iyo madaxweynaha Jubbaland oo xalay kuna la qaatay wakiilka qaramada midoobay Soomaaliya qaramada midoobay iyo howlgalka Amisom oo si kulul uga hadlay weerarkii hoobiyaasha ahaa ee shabaab shalay ku qaadeen xirada xalane oo ay degan yihiin wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya dawladda Soomaaliya oo sheegtay in baaritaan dhameystiran ay ku sameyn doonto weerarkii xalane ciidamada booliska magaalada Jowhar oo howlgal dad badan lagu qabtay ka sameeyay xalay magaaladaasi kadib weerar halkaasi ka dhacay madaxweynaha Puntland oo shaqadii ka joojiyay gudoomiyaha Boosaaso xilli dhawaan weerar uu ka dhacay magaaladaas qaar ka mid ah madaxweynayaasha maamul goboleedyada ayaa maanta Muqdisho soo gaaraya iyadoo madaxweynaha Jubbaland oo shalay soo gaaray Muqdisho oo xalay kulan la qaatay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswaan waxaa maanta lagu wadaa in magaalada Muqdisho ay soo gaaraan qaar ka mid ah madaxweynayaasha dawlad goboleedyada dalka ka jira si ay uga qayb galaan shirka beesha caalamka ay dadaal ku bixinayso oo looga hadlayo muranka hareeyay arrimaha doorashada Soomaaliya ayna ka qayb galayaan madaxda dawladda kuwa dawlad goboleedyada gobolka Banaadir iyo xubno ka tirsan beesha caalamka mas'uuliyiinta la filaya in maanta Muqdisho ay yimaadaan ayaa kala ah madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweynayaasha Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo ku maqan dalka Turkiga halka Muqdisho ay ku sugan yihiin madaxweynayaasha Jubbaland iyo Hirshabelle shirkan ayaana ka dhacaya teenda ku taala xirada Afisyooni gaarka xalane horena loogu doortay madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhinaca kale madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa xalay kulan gaar ah la yeeshay wakiilka qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswaan qoraal lagu baahiyay bagga Facebook ee madaxtooyada Jubbaland ayaa lagu sheegay in kulankaas uu ka dhacay hoyga uu Axmed Madoobe ka degan yahay magaalada Muqdisho isla markaana ay labada mas'uul ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka wararka laga helay kulankan ayaa sheegaya in kulankan diiradda lagu saaray shirka la filayo in magaalada Muqdisho uga furmo madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada sidii xal waara looga gaari lahaa khilaafka ka taagan arrimaha doorashada madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa xalay kulan la qaatay wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay oo qaabilsan Soomaaliya James Iswaan kulankan oo ka dhacay hoyga uu Axmed Madoobe ka degan yahay magaalada Muqdisho waxaana looga hadlayay arrimaha doorashada madaxweynaha Jubbaland ayaa galinkii dambe ee shalay soo gaaray magaalada Muqdisho oo lagu wado in maalmaha soo socda uu shir uga furmo madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada dalka shirkaas ayaana diiradda lagu saarayaa khilaafka hareeyay arrimaha doorashada Axmed Madoobe ayaa la sheegay in la dejiyay gudaha xayndaabka garoonka Aadan Cadde waxaana ammaankiisa sugaya ilaaladiisa gaarka qaramada midoobay iyo howlgalka Amisom ayaa si kulul ah uga hadlay weerarkii hoobiyaasha ahaa ee Al-Shabaab shalay ku qaadeen xirada xalane oo ay degan yihiin wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya dawladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in baaritaan dhameystiran ay ku sameyn doonto weerarkii shalay ka dhacay ama hoobiyaasha lagu qaaday xalane wariyahana Yunis Duraan Cali Osaaka warsoo saaraheena ayaa warkan faahfaahinaya ergeyga qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya James Iswaan iyo howlgalka Amisom ayaa si kulul uga hadlay hoobiyaal shalay lagu garaacay xarunta xalane oo fadhi u ah hay'adaha qaramada midoobay ciidamada Amisom iyo wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya ku sugan war ka soo baxay taliska Amisom ayaa si kulul looga hadlay weerarkan madaafiicda ahaa ee lagu qaaday shalay xirada xalane ee Muqdisho Amisom ayaa sheegtay in 3 askari ay ku dhaawacmeen weerarkaas oo burbur soo gaaray dhismayaal iyo gaadiid halkaas yaalay sidoo kale wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswaan ayaa ka hadlay weerar hoobiyaal ahaa ururka Al-Shabaab galinkii dambe shalay ku qaadeen xirada xalane ee Muqdisho oo ay degan yihiin hay'adaha caalamiga ah ee ku sugan Soomaaliya Iswaan oo qoraalka uu soo saaray ku cambaareeyay weerarka ayaa xaqiijiyay in 6 hoobiye ay ku soo dhaceen gudaha xarunta xalane waxa uu sheegay in aysan jirin wax hanti ah oo qaramada midoobay ay leedahay oo waxyeello ay ka soo gaartay weerarkaas iyo khasaare nafeed oo ka soo gaaray shaqaalaha qaramada midoobay ku sugan xalane hase yeeshee Iswaan ayaa xusay inuu jiro khasaare weerar ka soo gaaray dad aan ka tirsaneen shaqaalaha qaramada midoobay oo ka shaqeeya qeybaha kale ee garoonka Aadan Cadde oo xirada xalane ay ku jirto xiindaabkiisa waxaan cambaareynayaa weerarka hoobiyaha Al-Shabaab ay ku soo qaadeen aaga garoonka Muqdisho waxaan soo kabasho degdeg ah u rajeynayaa dadka ku dhaawacmay weerarka ay ku sugnaa qeybaha kale ee garoonka ayuu yiri James Iswaan
geesta kale dowladda Soomaaliya ayaa si adag u cambaaraysay weerarkan ee lagu bartilmaameedsaday xarunta shaqaalaha gargaarka bini'aadanimo ee Xalane ee Muqdisho. Qoraalka dowladda Soomaaliya ayaa u qornaa sidan: weerarkan furiynimada ah waa isku day la doonayo in lagu weeqo taageerada muuqata ee bulshada caalamka iyo dadaalkooda ku aadan dhismaha nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya. weerarkan hoobiyaasha ah ayaa cadeynaya isku dayada taagta daran ee Al-Shabaab oo maciin biday inay beegsadaan samafalayaasha u yimid dalka si ay u caawiyaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dhinacyada gargaarka bini'aadanimo kadib markii ay u midoobeen dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed sidii dalka uga sifeen lahaayeen argagixisadaas. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay qoraalkan inay kor u qaaday feejignaanteeda amni iyadoo baaritaan dhameystiran ku sameynaysa weerarkan hoobiyaasha ay Al-Shabaab soo qaaday iyo daruufaha amni ee ku xiran weerarkan. waxaan rabnaa inaan u xaqiijino bulshada caalamka iyo shaqaalaha samafalka in dowladda Soomaaliya si wadi doonto la shaqeynta daneeyaasha ammaanka si loo xaqiijiyo badqabka samafalayaasha caalamiga ah. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaas ay u adeegsadeen hoobiyaasha mana shaacin wax khasaare ah. weerarkan lagu qaaday xirada Xalane ayaa ku soo aadaya iyadoo la filayo in dhawaan halkaas uu ka dhaco kulan ay goobjoog ka tahay beesha caalamka oo dhex mari doona madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo kulankaasi looga hadlayo muranka ka taagan doorashooyinka Soomaaliya. in ciidamada booliska magaalada Jowhar ay howlgal dad badan lagu soo qabtay ay ka sameeyeen magaaladaasi kadib weerar xalay halka ka dhacay. howlgalladan ciidamada booliska Hirshabelle iyo kuwa dowladda Soomaaliya ee ku sugan magaalada Jowhar ay ka sameynayaan xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar ayaa waxay ka dambeysay kadib markii habeenkii xalay weerar qarax lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa Hirshabelle ee ku sugnaa bar control oo ku taala xaafadda Horseed. khasaare ayaa lagu soo waramayaa inuu geystay qaraxaasi waxaana ciidamada durba ay howlgalkaasi ku soo qabteen dhalinyaro aad u fara badan kuwaas oo la dhigay saldhigga magaalada Jowhar. mid ka mid ah dadka ku dhaqan xaafadda Horseed oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa iga warbixiyay howlgallada ciidamada ay wadaan iyo qaraxii habeenkii xalay ka dhacay xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar. wallaahi dad laga qabtay waa arkaynay sababtoo ah mar haddii qarax ee meel ka dhaco qasab way mataqaanaa howlgallada in dad lagu qabto oo shacab ah. dhowr jeer qarax saas loo eegtay oo bambeonooyin wax gacanta lagu tuuray mid la aasabo ugu horeysina ma ahayn. waa markii adiga afraad miya shanaad miya marar badan ay ku soo laabteen ilaa saaki way wadaan. ma jirto ilaahay haatan wax war oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada ee ku sugan magaalada Jowhar oo ku aadan howlgallada iyo qaraxii habeenkii xalay ka dhacay xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar. Bashiir Cali Daarraadi Kulmiye Jowhar. madaxweynaha maamulka Puntland Saciidan waxa uu shaqadii ka joojiyay gudoomiyaha degmada Boosaaso xilli dhawaan uu weerar ka dhacay magaaladaasi. war laga soo saaray xafiiska madaxweynaha Puntland waxaa soo aqriyay wariyahana Hanad Maxamed Karaama. madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Deni ayaa shaqo joojin ku sameeyay xalay gudoomiyay golaha deegaanka degmada Boosaaso ee gobolka Bari kadib wareegto ka soo baxday xafiiskiisa. shaqo joojinta gudoomiyaha ayaa timid eedeymo la xiriira ku dhaqan la'aanta nidaamka maamulka dhaqaalaha ee magaalada Boosaaso waxaana wareegtada uu madaxweyne Deni uu soo saaray lagu xusay in madaxweyne Saciid Cabdulaahi Deni uu tallaabadan u cuskaday qodobka 8aad ee dastuurka Puntland. wareegtadan ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Puntland Saciid Deni ayaa lagu yiri madaxweynuhu markuu arkay tala soo jeedinta wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Puntland iyo cabashooyinka ka imaanaya shacabka degmada Boosaaso waxaa shaqada laga joojiyay gudoomiyaha degmada Boosaaso mudane Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan. waxaa shaqada sii wadaya gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee degmada Boosaaso. waxaa la furay hanti dhowrka guud in ay baaris dhameystiran ku sameeyaan maamulka iyo maareynta Boosaaso. waxaa dhawaan ka dhacay weerar khasaare sababay kaasi oo dhawaan Al-Shabaab ay ku qaadeen xabsiga weyn ee degmadaas. ciidamada amniga ee magaalada Kismaayo waxaa lagu soo waramayaa inay gacanta ay ku dhigeen dad ka ganacsanayay waxyaabaha maanka dooriya sida warkan uu inoogu soo diray Cabdimajiid Cabaas Aadan. saraakiisha ilaalada xeebaha wadanka Tunisia ayaa sheegay in 39 tahriibayaal ay ku geeriyoodeen xeebaha wadankaasi Tunisia. waxaa la soo badbaadiyay 160 qof oo iyagu la sheegay in biyaha ay ku go'doonsanaayeen kuwaasi oo ka soo jeeda dawlada Afrikaan ah. 2 doomood oo ay la socdeen ayaa la yiri waxa ay ku qariqmeen biyaha xeebaha wadankaasi Tunisia.
muhaajiriintan ayaa waxaa la tilmaamay inay isku dayeen in ay Yurub si sharci dara ay ku gaaraan. ilaalada xeebaha waddankaasi Tunisia ayaa dadka kasoo badbaadiyay biyaha magaalada Safaaqis. wasaaradda difaaca waddanka Tunisia ayaa sheegtay in ilaalada xeebaha waddankaasi Tunisia ay soo badbaadiyeen 165 qof oo tahriibayaal ah, waxaana la soo saaray 39 meyd. afhayeen u hadlay ilaalada qaranka ee xeebaha waddankaasi Tunisia Xisaam Diin Al-Jabaabili ayaa wakaalada France Press waxa uu sheegay in 9 haween iyo 4 caruur iyo rag kale ay qayb ka yihiin kuwa geeriyooday. weli waxaa soconaya ayaa la yiri baadigoobka dad kale oo la la'yahay iyo sidoo kale kuwa meyd lagu xisaabinayo, sida wakaalada AFP ay qortay.